taas marka way iskaga egyihiin labadaba inay rabaan faa'iido raadis inay yihiin. Okay, haddaba marka maxay ku kala duwan yihiin? Assalaamu calaykum asxaabteyda qaaliga kusoo dhawow channelkayga. maanta waxaan ka hadlaynaa investment versus trading, mawduucan oo aad iga soo dalbateen, aad igu soo qorteen commentiyada oo investmentii ku saabsanay iyo Instagram-kaba. Yes, marka haddii aan mawduucan usoo noqono, maxay ku kala duwan yihiin investment iyo trading? intaanan galin waxay ku kala duwan yihiin, waxaan rabaa ku goorata in aan xuso waxa ay iskaga eg yihiin. waxa iskaga eg yihiin ayaa waxay qofka markuu investor yahay iyo qofka markuu trader yahay, labadaba waxay haystaan hal goolkooda oo markaas in faa'iido ay helaan. aan dhahno kale qofkii $100 ayuu haystaa, qofka traderka wuxuu rabiyaa inuu $100 kordhiyo 200 ka dhigo. qofkii investorkan asagana sidoo kale $100 inuu kordhiyo rabiyaa 200 ka dhigo. يعني لو بخد سؤال أو سوق هذا أنا وحالجي إنه لو بقولي $20 إنه ربنا كديك أما بقولي كنت تقف كست دي جول كيس ويكل دونا كرتا يس تاس مرك وإسكا إجيهين لبضبة إني ربان فإذا رادس إنيهين. أوكي هذا مرك محيك كل دويهين وحو كل دوية وحتى إنفستر قفك مركو يهاي وباسيف قدك كوات وباسيف يعني إن وقت بدن كما قال يسوع إنه إنفستمنت ينسميه أما waxaa laga yaabaa ugu horeynta inay waqti ka gasho, laakiin kadib waqti badan oo saas kama galayso kale. waxaa laga yaabaa tusaale kale waxaa soo qaadanaya qof investment ku sameeyay dhul oo qofkan iibsanaya asoo aaminsan dhulkan maanta hadaa ka bixiyo $50,000 bari 5 sano ka bacdi wuxuu noqonayaa $100,000. so marka halka mar oo $50,000 oo meeshan uu gelinayo ayuu marka wuxuu sameynayaa saadaalis uu saadaalinayo xaafadda uu ku yaalo, xaafadda inay madhow suuq gali doonto, magaalo noqon doonto, laami la saari doono, bla 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 wixii ay ahaataba yani oo wixii marketkan hadhowta bedeli lahay oo sababta waxaan u aaminaa ilaa jirto researcher uu markaas uu hordhac uu sii sameeyo kaleeto. taas shaqaa ka gashay somaha, laakiin markuu gato shaqo kaleeto ma jirto, waa inuu sugaa. saas darteeda marka badankeeda waxa loo xisaabiyaa kan waxa waaye passive ama shirkadu saas oo kaleeto ku sameynaya, shirkadu darsay wixii lamid ah shirkadu markuu gatane shirkad markaas oo soo bixaysa laga ID-deeda inuu aaminsan yahay shirkadu markuu sida uu ku gato waa inuu sugaa shirkada ilaa ay ka kubacday waxtar ay ka bilaadaa ka bacdi ilaa intaas la gaarayna yani wax badan ma dhacayso inuu news wax yar akhriyo iyo shirkadaha report ka soo baxays uu akhriyo. waa passive. qodobka labaad investorka lagu yaqaano ayaa iidan waxay tahay waa long term. qofka investorka markuu meel maalgelin ku sameynayo, maalgelin oo ma ahaan maanta uu gelinayo 1 sano ka bacdi oo kala baxayo, maya taas waa short term. soma maalgelin badanaa waxay sameeyeen ugu yaraan 3 sano ugu badnaana dee forever ilaa qofka ka dhimana iska wadi karaa maalgelintiisa ilaa asaxa kume. marka waa long term. saada dhul qof uu gato badanaa 1 sano ka bacdi dhulkan wax gooni isma bedelaysa, laakiin 5 sano waa isku bedelaysa samaha. yani marka waxa waaye wax oo muddo dheer qofkan oo maalkiisa meel gelinaya ama shirkad oo aaminsan yahay, laakiin 5 sano ka bacdi 6 sano ka bacdi 10 sano ka bacdi 30 sano ka bacdi yani ay jirto aaminitaanka noocaas oo kaleeto. taas waa qodobka labaad. qodobka saddexaad marka waxa waaye yani aqoon mi u baahan tahay waxaan my education, yani ina qofkan uu method gooni uu yaqaan miya maya. investment adiga sameyn karto, aniga sameyn karo, qof kasta sameyn karo, inkastoo ay jirto methodyaal la raaco si loo fikir ay jirto si markaa u maximize gareysid returnkaaga, laakiin haddana waxaa iska basiido qof kasta uu baran karo haddii uu xiisihii uu hayo. yes, taasna waa midda saddexaad. qof kasta sameyn karo, way fududahay, wax ma ahan aqoon gooni u baahan, qof kastoo xiiseyna ayaa baran karo. midda afaraad marka su'aalo qaarkood soo diraya waxay tahay keebaa fiican. marka keebaa fiican intaa kaagama jawaabi kara, laakiin waxaa kaaga jawaabi karaa iyo ku habboon tahay. qofka ku habboon tahay waxay tahay qof alaalo qofkii oo busy sida adiga shaqo kale tahay sanadana kale taa naga dhacdo, laakiin goolna waa haysanaa oo dhaqaalahana soo gal qayb kamid ah inaa investment aan ku sameyno. marka investment oo maanta oo dhan la dul fadhinayna ma rabno, si mid passive ayaan rabnaa. anagoo kaleeto saasaa marka ama shirkada sheerka gadanayna ama dhula aan maalgelinayna ama dahaba gadanayna, yani wax oo maanta oo dhan inaan dul istaagnaana naga sugeynin oo kaligood shaqeynayo faa'iidada iska koreyso ayaan sameynana. marka taas waa investment. tradingka kuu soo haray
asagana waxyaabada lagu garto maxaa waa qofka traderka ah traderka wax lagu garto waxaa waaye waa active ugu horeyntii qodobka waxaa active macnaheedu waxaa waaye meesha qofka investmentiga oo hal mar le waqti intuu ku geliyo kabacdi 5 sano iska sugaya kan waxaa waaye maalin kasta joogtaad fadhisaa tusaale ahaan haddaa especially haddaa day trader aad tahay haddaa swing trader aad tahay iyadana isbuuc kastaad fadhisaa qaarkood haddii yacni ama bil kasto ama position trader oo kaleeta xoogoo kaasna waxaa laga yaabaa inuu sanadkii dhowr jeer camal uu fadhiisto laba kolba adi waxay ahaataba waqti badan ayaad gelinaysaa waxaan oo markaad waqtigaas aad gelinaysidne aysan ahayn oo kaleeto wax aad 5 sano aad sugaysid isla markii aad wixii haddana faa'iidadeeda ah hesha aad rabtaa qofka day traderka kale tusaale ahaan waxaa laga yaabaa maalintii suuqa 10 mar inuu wax ka gato ama iibiyo so marka taa marka waxay keenaysaa ugu duwanta investmentiga ayaa waxay tahay ama qofka investorka ah in aad shaqo ka dhiganaysid marka tradingka shaqo ka dhigna dan kale kaama dhacdo isbitaalka ma shaqaysid ama iskoolka ma shaqaysid wax kale ma shaqaysid waxaa computeradaada unbaad kor fadhisaa suuqa baad maalin kasta aad cabiraysaa aad darsaysaa aad u isticmaalaysaa methodyada ama technical analysis kala duwan aad markaas aad dhehaysaa okay jihadan u socdaa dhankan u raacaya wax waa gadanaya ama waxba iska gadaya marka waa active-nimadaas aad waa mid ay ku kala duwan yihiin midda labaad ay ku kala duwan yihiin waxaa short term waaye tradingka يعني ما هان إن عاد وحي أنت قدرتي عاد 5 سنة للسياحة نيسد وحي إسلام أنت أجد أسكجد يسا مثل أسبوع أساس كجد يسا مثل بيش نوع عطاي تريدر يدو كحرن مركا يدر هو short term يعني وقت جابن آيات هي سنة سفا إذا وقت جابن آيات ربطاني كوس وبحضو مد السدحات يدن إيكو كل دوين يا واحد هاي قف متهاي تريدينج ما سمين كرو هذا أديجة oo investor ahay oo weliga trading ah sameeyay inta trading ah soo gashid maanta ma dhigi kartid suuq hadda wax ka gadanaya ama 10 mar wax ka gadanaya ama 10 mar wax iska iibinaya isla maanta sababta taas soo meekana waxay tahay badana trader qofku markuu yahay analysis badan oo kala duwan oo isku dhex darsanaya sameynaya fundamental buu isticmaalaya analyze buu isticmaalaya sentimental analysis technical analysis isticmaalaya markaasuu maanta oo dhan wuxuu hor fadhiyaa computerkii ama dhowr computer chart buu hor fadhiyaa waxa uu cabirayaa maanta trendiga kor ma u socdaa ama hoos buu u socdaa iyo wixii la mid ah so marka waa wax aqoon u baahan sida shaqo kasto sida aqoon ugu baahan tahay kan aqoon ugu baahan tahay sida yani qof surgeon oo kaleeto qaliin ma bilaabayo asoonan waxbarasho iyo training dheer aysan ka horeynin marka tradingka waa sidaas oo kaleeto yani trader miska noqon kartid adoo juhdi gelin iyo barashadiisa so aqoonta kala duwan investmentiga taa aqoontaas dheer uma baahan wuxuu u baahan tahay un deganaasho iyo ina xoogo suuqa aad daristid adoo markaasna badana fundamentalka isticmaalaysid yes maxaa kaloo kuu soo haray traderka oo kaleeto ku fiican tahay waxay ku fiican tahay qof oo sidii shaqada maanta aad dooratay waxa ku dooratay sababta u dooratay camal qofkaasna ku doortay haddii aad isbitaalka shaqaysid maxaa isbitaalna u shaqaysa aad dooratay xiisa aad u xiiseynaysid mahano qofkan traderkana waa profession asaga saas camal ayuu u doortay oo badanaa dadka traderka ahna yani waxaa training dheer iyo waxbarasho dheer ka dambeyso ka bacdi ayay noqdaan especially markay noqonayaan professional traders oo bangiyada waaweyn u shaqeynaya oo kaleeto marka waa yani waa shaqo nuuc shaqo waaye yes marka kaas ay kala duwan tahay so marka idinku su-aashiina hadda idinku soo noqdo dadka iweydiinaya koley sababta iweydiinaya waxay kala fahmi lahayn midkee noqonaynaa mid labadaba isku noqon kartaa horta wax ka hortaagan ma jirto laakiin haddaa trader aad noqonaysid waa inaad fahansanaatid yani waa nuuc min al-shaqo shaqana haddee tahay intaad shaqadii aadan iskaga boodin dee waxbarashadeedii inaad haysatid waaye oo aad waqti fiican aad gelisas hadhooti suuqa aadan ugu jahwareerin lacagta xag kasoo samaysanaya qaarna trader ahaan oo kusii wadi kartaa qaarna investment aad samayn kartaa haddii ay tahay ujeedadaadani anigoo shaqo kaleeta iska haysto kaleeta meel nurse-ka ama dukaan ka shaqeeya ama waxaas ka shaqeeya ayaan rabaa inaan trader aan noqdan iyadan wax kaa celinaya ma jirto laakiin shaqo camal waa inaad uga fikirtid aad waqti cayiman aad u samaysid aad ku barani kartid kabacdina aad traderka aad ku noqon kartid aad kusii wadi kartid marka waxaan rajeynayaa su-aalihiina inaa idinkala jawaabay iyo inay labadan wax ay yihiin wax kaliya iskaga egyihiin inay tahay inaad lacag faa'iido aad samaysid laakiin sida kaleeta ee aad ay ku kala duwan yihiin aysan waxba iska quseynin
oo labadaba isku noqon kartid ama mid ka noqon kartid su'aalaha jawaabtid intaas ay ku ekeed marka waxaan rajeynayaa in aan idinkaga jawaabay aad jawaabteen aad ku qanacdeen haddii aad rabtid su'aalo oo ku sii saabsan qaybtan haddii aad su'aalo kale aad haysid ama mowduuc aad rabtid inaan ka soo hadalno hoos iigu soo qor markasta waan jeclahay mowduucyada aad la imaadiin inaad tixgeliyo haddaan arko dhowr qof ee isla mowduuc kusoo celinayso waxaan xooga saaray inaan video kasoo sameeyo sidoo kaleeta si aan u ogaado inaad mowduucan aad ka hesheen fadlan like aad u badiyo commentingana iigu soo qora si aan u sii wado iigu soo dhiirigelinato haddii aan like ay yaraato commenting u yiraahdo waxaan u fahmayaa okay mowduucan lama xiiseenaayo inaan gaabiyo markasta marka waxyaabada interesting waxaan ka akhristaa sida aad u dhaqantaan oo kaleeto marka like iyo commentiga badiya iyo mowduucyada aad rabtiin inaan ka hadalno mustaqbalka waad mahadsantahay inta ila soo gaartay waxaas arkeenaa axada dambe